waa dal ku yaala qaaradda Yurub wuxuuna ka mid yahay wadamada la isku yiraahdo Scandinavian-ka. Ku soo dhawow macluumaad laga yaabo inay tahay markii kugu horeysay aad maqasho oo ku saabsan wadanka Norway. wadanka Norway oo sida caadiga ah loo yaqaano boqortooyada Norway waa wadan dhaca qaaradda Yurub. Norway waxay xuduud la leedahay wadamada Sweden, Finland iyo Russia. wadanka Norway wadan aad u dheer, meesha ugu dambaysa waxa uu u dhow yahay meesha adduunka uu ku dhamaado. Meel waxaa jirto aan qoraxda ka dhicin. Norway waa wadanka saddexaad ee jasiiradaha ugu badan dunida ku yaalaan. Kaliya waxaa ka horeeya Sweden, Finland waxa uuna leeyahay in ka badan 50,000 oo jasiiradood. Norway waxay u qaybsan tahay 19 county ama maamul goboleedyo. wadanka Norway waa wadan aad u duqsan, waxa uu jiri jiray 8,000 sano ka hor. Dad waxaa deganaan jiray barafka ku safri jiray, gaar ahaan dadka loo yaqaano Vikinga. Waxay ahaayeen dad mar walba raadin jiray dhul cusub. Luqadda rasmiga looga hadlo waa Norwegian, waxaana ku hadasha in ka badan 5 milyan oo qof. Caasimadda dalka waa Oslo, waana magaalada dadka ugu badan ay ku nool yihiin. Sidoo kale waa halka dawladdu ay degan tahay lagana maamulo dalka. Bedka guud ee Norway waa 385,522 kiilomitir oo isku weer ah, waxayna saas ku galayaan kaalinta 6aad wadanka ugu dhulka weyn qaaradda Yurub iyo wadanka 69aad ee ugu dhulka weyn dunida oo dhan. Dadka ku nool Norway waxaa lagu qiyaasaa in ka badan 5 milyan oo qof. 16% ay yihiin dad aan wadanka u dhalan oo ay ku jiraan Soomaali badan. Dadka muslimiinta ku nool dalka Norway waxay gaarayaan 12% tirada guud ee dadka ku nool wadanka Norway. Norway waa xubin ka tirsan qaramada midoobay, waxayna qaramada midoobay ku biirtay 1945. wadanka Norway waa wadan qani ah, waxayna qaniimadiisii ka soo bilaabatay 1969 markaas oo shidaal laga helay wadanka, wuxuuna ka mid noqday wadamada dhoofiya shidaalka. Norway waxay lacagta ugu badan ee miisaaniyadda dawladdu ku baxdaa 2 wasaaradood oo kala ah, wasaaradda caafimaadka iyo tan waxbarashada. Sababahaas ayaana ka dhigay Norway wadamada ugu wanaagsan markii laga hadlayo waxbarasho iyo caafimaad. nidaamka dawliga ee ka jira Norway waa boqortooyo ama dhaxal iska sugid. Dawladda oo ka kooban ra'iisul wasaare iyo maamul goboleedyo waxaa magacaaba oo soo xusha boqorka iyadoo ay ogolaadeen baarlamaanka. Tan iyo sharci dejintii 2009 baarlamaanka waxa uu u shaqeeyaa sidii unug 2 xisbi ka kooban, inkastoo arrimaha badankooda looga hadlo kala fadhi wadajir ah. Baarlamaanka 4 meelood 1 meel waa aqal sare, halka inta soo hartayna ay yihiin aqal hoose. Waad ku mahadsan tahay daawashada muuqaalkan. Haddii aad ka heshay, fadlan like saar. haddii aad naga cusub tahay nagu soo biir adigoo calaamad subscribe ta taabanayo. mahadsanid.